la xafido oo haddii rabbi xukmayo islaamka lagu caawiyo oo la baro oo lagu ducaysto oo dhibaatada lagaga baxo waxa weeye waxaynu nahnaa roobkii yaa daay baynu nahnaa hadda af Soomaali ahaan ma nidhaahno roobka yaa shubay ma nidhaahno waxa soo baxay baynu nahnaa geedihii baa soo baxay baynu nahnaa arrimaha majaaz baa leeyahay marka laga hadlayo marka waxa la yiraahdaa geedihii baa soo baxay baa la yiraahdaa geeduhu mayaga awood leh ku soo baxaan roobku misaga awood leh ku doo majaaz baa sharciga la yiraahdaa sida kalena waa xaqiiqa baa la kala loogu hadlayo waxbayaanan ku dheeraan culimaduna kulli iiga dambaysa waynu ducaysananaa ilaah waaxid lahadkii tacabka haynala qabto dawladnimada ilaahay haynoo adkeeyo madaxda ilaahay haynoo hagaajiyo xaqa kuwa ku shaqeynaya Allah ka dhigo sida dawladnimada looga shaqeynayo dawladnimadu waa shay adduunyo weeye diinta looga shaqeeyaa waajiba madaxda ka shaqeynaysa dunyada ka shaqeynaysa wax wanaagsan bay hayaan waxa ka sii wanaagsan diintana inay wax ka qabtaan oo dadka malcaamadaha iyagu furaan oo haddii rabbixiyo dadka dhigaya caawiyaan waa shay waajib ah qofkii ninkii xilka islaamka la saaray inuunan dunyo qura ku jeesani uu dunyada iyo diintaba ku jeesto camalka aakhiro uu dadka ku rabeeyo camalka wanaagsan uu dadka ku rabeeyo naxariis badan uu u yeesho dadkiisa mideeyo ilaaha waaxid lahadkii haynoo waafajiyo sida wanaagsan haynoo waafajiyo qarankeena iyo cidda inooga shaqeynaysa dhammaan hawl badan baa haysee Allah ha u fudaydiyo hawl badan baa haysee Allah ha u fudaydiyo innakana muwaafaqo iyo isogolaasho ilaahay dhexdeena ha yeelo kuwii diinta iyo dalkaba u shaqeeya Allah inaga yeelo dalka haddii loo shaqeeyo waa dadka oo loo shaqeeyo weeye waajib maaha wax laga yaqiiqsoodo weeye madax ummadeed oo rabta ama inay dalka madax ka noqoto ama ay madaxba ka tahay in ay shacabku ku kala tago awgood ku kala taga waa nasiib darro in ardada iyo waxa wax maqlayaaba hadii goor ay ka dhageystaan cay iyo aflagaade ay ka dhageystaan in raxmadu ay madaxda ka dhalataa loo baahan yahay ilaahay waaxid lahadkii raxmad haynoo geliyo innakana muwaafaqa Allah haynoo geliyo kuwii ismaqal Allah haynaga yeelo اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
taariikhda culimada inoo sheegay sheekha taariikhda hijriga kitaabada ka soo qoreen 6666 bay ahayd taariikhda hijriga maanta maraysa 1444 markuu sheekhna wadanka yimi marka sheekhan marka taariikhda laga soo bilaabo iyo saakadeennu joogno 778 sano ayaa ka dambeysay intaas ayuu wadankeena joogay sheekhu diinta waxa gaarsiiyay heer marka waa laga aflaxay waa tufku khayr culimada uu inooga soo farcantay aynu farciid ka joogno markay tilii waxa sheekheenu sheekh aad u karaamo badan ummaddu waxay ummad hanuunsan sharciyada ku maalfashay nabiga kaleey salaatu wasalaam inoo sheegay waa ka soo bariya in laba malag cadeeyada garabkeeda ay socdaan ilaa walihi malakaan labada malag mid kamid uu ducaynaya wuxuu ku ducaynayaa Allahumma adi khalafan ilaa qofku wax sadaqaystay bedelkeeda leeysi Allahumma adi munfiqan buu ku ducaynayaa ka kale wuxuu ku ducaynayaa ilaa midkiisii haysay oo sadaqadii diiday ilaa uu telefoon daba mari ummaddu sadaqad bay sharciga ku alfasha marka aan leeyahay wuxuu sheegay Soomaaliya wuxuu sheegay sixir ka daran dadkeennii waxa la walaalayaal dad si khaldan diinta u turjumaya ujeedada ayagu ay leeyihiin ku dabaqaya runtii laga mana faa'iidino imika bulshada wax gareedkeeda iyo cuqaasha iyo neergaradka markaad la tashataa wax weydiiso war waxaanu ka dhaxalayba oranayaa sadaqadii iyo la barigii siyaarooyinkii aan dhigi jirnay markaanu joojinay waalidiintii la siyaaranayay booskeedu waxa bedeshay baa la yiraahdo mag waxa ridina lagu dadka ay ku siyaari jireen waxa bedeshay in dhiig bani'aadam ku soo hoydo in khasab wax laga qaado haleenahay maanta dibtii waynu fahanay oo waa aragteen waxa leenahay walaalayaal dibaadidii iyo loo soo noqdo la barigeeni iyo sadaqadeeni aan ku soo barakownay ilaahay dalkii dadku nagu barakeeyay intaas anigu ku soo koobiyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh مدد بالله يا شيخ إسحاق فجد بالله أخذنا أيها القطب فكنا أسرى بإذن الله بشروا بالفتوحات فأنت بابك انسلا تفضل أيها الشيخ بفيض من عالم الله ثبات منك يا عوني ثبتنا سلك أهل الله ثبات منك يا عوني ثبتنا سلك أهل الله جميل جامع الفضل جواد جذب جود الله جميل جامع الفضل جواد جذب جود الله جميل جامع الفضل جواد جذب جود الله حبيب هو يسر حفيظ حكم شرع الله حبيب هو يسر حبيب حكم شرع الله حبيب هو يسر حفيظ حكم شرع الله خبير خاشع القلب خبير خايف لله دواء القلب والجسم دليل في سبيل الله دواء القلب والجسم دليل في سبيل الله دواء القلب والجسم دليل في سبيل الله دواء ذكره قوت ذكي ذاكر لله رحيم للمساكين رفيع القدر عند الله رحيم للمساكين رفيع القدر عند الله رحيم للمساكين رفيع القدر عند الله
لله تقي الأصل والفرع والزين زايد لله تقي الأصل والفرع والزين زايد لله زيد زكي الأصل والزين زايد لله شريف الأصل والفرع شريف شكرا لله صبر ساكن المجد صفح صابر لله صبر ساكن المجد صفح صابر لله صبر ساكن المجد صفح صابر لله ضياء الأرض كالشمس ضياء من رسول الله ضياء الأرض كالشمس ضياء من رسول الله طبيب ظاهر الأصل طبيب ضائع لله ظهير لمعرض ذابرنا وبحمد الله ظهير لمعرض ذابرنا وبحمد الله عبير العرب قال مسك عزيز عبيد لله من أنا لنا صرعا وغيبا من أسرار الله فريد دار ذو فتح فالله من بدء الله فريد دار ذو فتح فالله من بدء الله قوي قامع البداية فقوينا بنصر الله كريم النعت ولا أصل كريمنا يا ولي الله كريم النعت ولا أصل كريم يا ولي الله كريم النعت ولا أصل كريمنا يا ولي الله نبي الله من علوم لواء الخلق عند الله نبي الله من علوم لواء الخلق عند الله ملذ منبع الأنوار فنورنا بنور الله نقي ناصر الشرع ونبرز العلم الله يا 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 ناصر الشرع ونبرز العلم الله وقفنا بابك سيدي فالنظرة يا حبيب الله وقفنا بابك سيدي فالنظرة يا حبيب الله وقفنا بابك